markaad u sheegtana kula dagaalamay sheekh kuwa sidaas yeela haddaan la dagaalamo waan ka awood badnahay yani kulle waa qof shaksi aan u fahmay laba nin xoog leh oo haddaan marka xooggiina kaga argoosto arrintaas maxay sharcadu waqta bismillah haddaad adigu ka adkaato adigana soo laga adkaan maayo oo haddaad disho soo adigana lagu dili maayo oo meeshaa fitniya fasaad ka dhalan maayo oo Soomaali bayna waan isnaqaanaa qabiil soo isu rogi mayso ya saas daraadeed sida saxda waxa weeye ruuxaasi gaalnimo galay ruux ilaahay caayay oo rasuulka caayay ama diinta caayay ama malaa'igta caayay gaalnimadiisu bannaankay taallaa daqiiqadaasuu diinta ka baxay hadduu muslim ah naagtiisuna hadduu xaas leeyahay daqiiqadaasay ka furanta hadduu sidaa ku dhintana in qubuurta muslimiinta la geeyo waa khalad masaajid in la keeno salaatu janaaza lagu tukadana waa khalad dib inuu u soo islaamo oo soo ashahaato way si kaleeto islaamnimadiisu ku asaxi mayso maxaa yeelay ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum warma allah iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisaad ku jeesjeesaysaan ood caayaysaan miya waxba ha cudurdaaranina gaalaad tihiine waad gaalowdeen waxba ha cudurdaaranina le marka waa gaalnimo biijmaaci alculamaa diintaa lagaga baxaa daa'irta muslimka waxay u baahan tahay arrintaa in laga taxadaro yaa aada looga taxadaro weliba iyaga keligood maaha mujtamaca muslimka ah wax dhegtiisu ku dhacdo waxaa ugu dhib badan ilaahay oo la caayo dhegtoodu inay maqasho allahoodii oo la caayayo diintoodoo la caayayo rasuulkoodoo la caayayo muqadasaadkoodoo la caayayo wax ka daroon dhegteenna ku dhex lahaa ma jiro xalku muxuu yahay marka si jamaaci in looga dagaalamayo waxaas si wada jir ah oo mas-uuliyadda koobaad waxay fuulaysaa dawladday fuulaysaa ya dawladdu waa inay ka dejiso maxkamadaha iyo qudaadda iyo dawladda iyo muxuu ahaay asluubta iyo anshaxa waa in laga dejiyo axkaam adag ruuxi allaha caaya ama muqadasaadka caaya waa inay axkaam adag leedahay oo cidda ugu horreysay tilaabo ka qaadaysa waa inay dawladda noqoto cidday ku caddaato mas-uuliyad waxay ka saaran tahay mujtamaca muslimka laakiin adiga shakhsiga ah tilaaban ka qaadaya markaad tidhaahdood feedho ama aad disho aamin lagama aha inay fitno ka weyn ka dhalato shareecadeennuna waxay leedahay dhibka marka la xallinayo dhibkaasi waa inuusan dhib weyn ka dhalanayn dhibkaa dhib ka weyn hadduu ka dhalanayo waa khalad in lagu tilaabsado nebi maxamed baa magaalada maka joogay asnaam baa taallay tilaabo ma qaadi karin soo ma asnaam baa taallay intuusan hijroonin munkaraadku haddii inkiridooda ay ka dhalanayso wax ka dhib badan waa luu kaadinaya ama jid kalaad u mari tilaabo inaad qaaddo dhibaata ka dhalanayso oo adigii markaad dhib geysato dhib lagu geysanayo oo qabiil noqon karto oo dad badanay dhibaato isu geysan karaan dee markaasi fitno unbaad ka talisay wax mada xallin laakiin waxaa saxa inaad dariiq kaloo lagu xallin karo hadaad u naseexayn karto haddii nidaam iyo dawlad haddii muxuu ahaaye maxkamad iyo qadaa qaab un wax looga qaban karoo kale in looga qabto mooyaane keliga fitno ka weyn baa ka dhalanaysa wallahu aclam sheekhana su'aashaan